jacayl jacaylku waa awoodda ugu xoogga badan dareenka bini'aadamka. haddii jacayl la waayo, wax fara badan oo noloshana waa la weynayaa. waa hadiyadda ugu qaalisan ee uu qofku ku siiyo. qofkii ku siiyana wax ka qaalisan oo uu ku siin lahaa ma jiro. waxaad ogaataa, jacayl lacag goysaa ma jiro. dadku waxay yidhaahdaan hebel xooluu leeyahay, sidaasay u jecel yihiin. waa xaqiiqo, marka dhibaato kugu dhacdaa oo xoolaha aad weydid, dadkii ku jeclaa oo dhanna waad weynaysaa. laga yaabaa in facebookkaaga ay 100,000 kun oo qof kula socdeen. waxaa laga yaabaa in uu ugu yaraan 100,000 kun oo qof oo aad garanaysid aad kuu qadiriyaan. laakiin markii dhibaato kugu dhacdo, waxaad haysatay aad weydo, iyagana waad weynaysaa. maxaa yeelay waxay kugu jeclaayeen baa meesha ka baxay. hadday taasii baxdayna, iyaguna way raaceen wixii aad weyday. qodobka labaad oo maanta kula wadaagayo wuxuu yahay, si kastoo noloshu kugu adkaatay, haddaad haysatid qof ku jecel, dhibka marna ma darintid. markii aad dhibaato kugu dhacdo oo nolosha kaa ilmaysiiso, qofka ku garab fadhiya oo garabkaaga inta uu kaa salaaco ilmada kaa tirtira, haddaad haysatid dhibaatooyinka oo dhan ma dareemaysid. mahadda ugu weyn ee aad mahadin karto, qaabab fara badan ee uu qofka kugu mahadiya kartid ayaa jiro. waa inaad u ducaysid oo aad khayr iyo barwaaqo iyo barako ugu ducaysid. nolosha aynu doonayno, raaxadayda iyo naxariistayda, wanaagayda iyo barwaaqadayda waxay ka timaadaa naxariista kuwa nagu wareegsan, iyagana u fadhiyo. subxaana rabbika rabbilcizzati camaa yasifuun, wasalaamun cala almursaliin, walxamdu lilaahi rabbilcaalamiin.